Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Kismaayo kulan isxogwaraysi kula yeeshay dhalinyarada ku nool magaalada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo dhalinyarada u muujiyay hoggaanka dalka ay muhiimad gaar ah siinayaan arrimaha dhalinyarada ayaa uga jawaabay su'aalo ay ka weydiiyeen xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, qorshaha amniga, waxbarashada, caafimaadka, doorashooyinka, shaqo abuurka dhalinyarada, kobaca dhaqaalaha, maalgashiga iyo barnaamijka deenacfinta. Dhammaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayuu sheegay Ra'iisul Wasaaruhu in mas'uuliyadda ay ka saaran tahay adeegida bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isagoo intaa raaciyay in ummadda Soomaaliyeed ay kula xisaabtamayaan waxa ay dhisaan iyo waxa ay qaldaan. dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dadka madaxda ka ah kulligeen mas'uuliyadda dalka naga wada saaran. Sideedana kulligeen waxaan kula xisaabtamayaa laba arrin, waxa aan dhisnay iyo waxa aan dumino. dalka meeshuu ka hagaajisan yahay waa inaan sii hagaajino, meeshuu ka halaysan yahay waa inaan toosino. sababta hadda halkaan u joogo waxay qaybay ka tahay inaan xiriir fiican la leenahay dowlad goboleedyada in shaqada dalka la dardar geliyo. maxaa idinkaga qorshaysan? waxaa nooga qorshaysan inay khasab tahay in ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wada shaqeeyaan. fikirka ah marka in dadka Soomaaliyeed degmo iyo tuulo meesha ay joogaan loo wada adeego, kan dowlad goboleedka madaxda ahna waa inuu sidaas u fahmaa. kuwa baarlamaanka ama xukuumadda ama wasaaraha ama madaxweynaha magaala madaxda iyo dowladda federaalka ahna waa sidaas inuu fahmaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhalinyarada oo kulanka la yeeshay u sheegay in dowladdu ay dib u habeyn ballaaran ku wado dhaqaalaha, ciidanka qaranka, siyaasadda, horumarinta arrimaha bulshada si loogu guuleysto himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. dalka amnigiisa in wax laga qabto ma ahan amniga kaliya in wax laga qabto, waa in amnigiisa wax laga qabto, waa in dhaqaalihiisa wax laga qabto, waa in siyaasaddiisa wax laga qabto, waa in arrimahiisa bulshada wax laga qabto. amnigu in dhalinyarada ay baagamuudo tahay amni darrada ay qayb ka mid tahay, in musuqmaasuq uu jiro amni darrada ay qayb ka mid tahay. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa dhalinyaradii uu kulanka la yeeshay su'aalihii isagoo uga jawaabaya waxa uu cadeeyay in hagaajinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay ku xiran tahay sida waxbarasho tayo leh ay u heli lahaayeen loogana hirgelin lahaa dalka. arrintaasi oo sheegay in dowladdu ay gelinayso dadaal badan. dowladdu qorshana way leedahay, qorshihiina wuu socdaa, laakiin waa bilow oo heerka waxbarasho hoose iyo saraba. ugu dambeynna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan la helin waxbarasho tayo leh dalkana dhibka inaan laga saarin karin, mustaqbalkana inaanan dunida la tartami karin. yacni waxaa ka sii daranba haddii dhallinyaradeenna waxbarashada ay helayaan aanay la qiimo ahayn ama ka qiimo badnayn waddamada deriska, dalkeenna annaga inaan u tashanno mustaqbalka dhib ay noqonaysaa. jiilkii horena meesha uu ka sii baxayaa, jiilka cusub oo jirana waa idinka. qaar ka mid ah dhalinyaradii kulanka uu la qaatay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa dareenkooda ka waramay. magacaygu waa Xamdi Caraale. waxaan ku faraxsanahay in Ra'iisul Wasaaraha noogu yimaado magaalada Kismaayo. waxaan ku sii faraxsanahay in Ra'iisul Wasaaraha uu fursad noo siiyo inuu tiim noola fariisto, dhalinyaradii si gaar ah ula fariisto, xog wareysto, arrimahooda ka wareysto, waxay u baahan yihiin hiigsigooda iyo wuxuu kala garab gali karo ka wareysto. aad baan ugu faraxsanahay Ra'iisul Wasaaraha ummadda Soomaaliyeed inuu nagu soo booqdo maanta oo la kulanno oo xabashooyinkana u sheegano. aad baan ugu faraxsanahay. waxyaabahan ku arkay Ra'iisul Wasaaraha ee kaga duwan yahay madaxda kale waa qof ku dhageysanaya oo mas'uul ah, waxa u sheegatana qaadaya oo qoraya. waxaanan ka dalbanaynaa in waxaanu ka dalbanay uu sida u fuliyo. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Kismaayo.